qoftan hantideeda haddaynu ka hadalno oo diinteeda waa hinduusa laakiin waa rajeynayna dee inuu soo muslimiyo odaygeeda Saif Ali Khan haaf muslim baa imika iska odhan karnaa ya waayo Kareena Kapoor Khan baa imika la yiraahdaa inankeeda xitaa Taimur Ali Khan magaca Taimur waa magac carabiya oo Persian name weeye weliba nin 1300 soo geli jiray Hindiya oo burburin jiray macbudada iyo meelaha ku caabudaan iyo xukuumadda markaas waqooyiga Delhi soo galay oo degeesi ahaa oo hadafkiisa koobaadna ay ahayd inuu waxan iyo diimahan iyo Hindidan wax caabudaysay iyo sanamada dunidan burburiyo hadafkiisa labaadna uu ahaa in uu hadii la hay'ad kale noqdo taariikhda inuu boss ama baal dahab uu ka galo xagga gumaystaha uu ka mid noqdo dadka yani ugu awood badan marka wax konkuur yani qabsan kara dal qabsan kara marka ninkaas xitaa sheeko badan baa ku duugan oo Taimur xitaa markii loo bixiyay Hindidu way kacdo Kareena way ku kaceen waxay yiraahdeen anaga ninkii barigiina soo gali jirayna baabiin jiray inankaaga aad bixinaan marka mar dambe adigu discussion badan baa meesha ka soo baxay oo xitaa inankooda yare magaciisa way sheeg waayeen ilaa uu ka dhashay way sheeg waayeen waxa jiraan problem kala la kulmaysan yani mawduuc weyn bay ka dhigeen barigaas Hinduudu oo yiraahdaan ninkii barigii saanoo galbeed ugu magac daraysa miya Kareenay ninkaasna asaliyan muslim baa waliba sunni buu ahaa lagu leeyahay ya waqtiyada waxaan ka hadlaynaa boqortooy Cusmaaniyiinta ama Ottoman Empire marka iyagu laakiin waxay ku adkaysteen oo yiraahdeen anigu saas aad u jeedaan kama wadnaha magac waxa weeye waa Persian oo asaliyan Arabi weeye oo waa xadiid macnihiisu Taimur macnihiisu waa iron waa xadiid marka anagu saas ma ka wadnaayo wuxuu dhaliyay يعني بوق بدن بمجا إنك هير اللي والسبب إنه كودا ير إنك هير مرة لابد كوني لحية تمن كودا شيء تيمور وعن الأبي هو كعن سكير ودركتين هذا الحين تاس يمجا يدس قيس كان دلايبا هاو كنا قضي ونفت الله كأنك هير هل كانوا مرة هل كانوا تاجي وحيرين تعلق مركا والسبب إنه كودا كلا يبحي جهنجير magaca ma sii sheegin kama hadleen ilaa markuu dhashay oo waxay ka baqeen in kooda yar ee dambena haday sheegaan magaca uu bixinayaan ma yar calooshooda ilaa sida caadiga calooshooda baa lagu sheegay inuu wiil yahay marka magacii dib bay isaga uga gaabiyeen ilaa markuu dhalanayo go'aan wax ku gaareen inaan magaciisa aan sheegin oo shaacin xitaa aanay uga bixin ba ilaa markuu dhalanayo si aan buuq sidii hore Taimur aan u dhalin oo dadku wuxuun bay ka soo saarayaan hadan waxaan iyaga niyadooda ku jirin ayay ka keenayaan markaas darteed bay magaca u qariyeen ka yar dambe oo markuu dhashay oo bixiyeen Jahangir marka waxaan rajaynaynaa Kareena Kapoorna insha Allah taala in Ilaahay soo xanuuniyo imika kama fogo oo iska half muslim baan oran karnaa maadaama ninkeedii carruurteedu ay muslim yihiin Kareena hantideeda waxa lagu qiyaasay 60 milyan caadi maaha caadi laakiin de hantida ninkeeda lagu madarn reer batoodi buu ka soo jeedaayo hanti waa cindak qasriyadooda ayaa filmada lagu metelaa qasriyadooda ayaa filmada aynu daawano qaar badan lagu metelaa marka waxa weeye hantiyadu iyo xasmo baahna oo dadka waxay ku dacaydayaan in Saif ay u gursatay hanti iyadoo iska ladnayd oo qoys fiican ka soo jeedin kasto iyadoo ay soo tafceen oo waxa la sheegay dayax bay weydiinay daxdar noo shafnaankayga qaaliga wuxuu yiri waa maxay sababta ay Kareena Kapoor ilaa imika inta la leeyihiin ay walaasheed u daba joogto ay u ilaaliso fanaankaygiyo waxa u ilaalisaa oo ilaa imika ay u daba taagan tahay sababta koowaad waxa weeye horta qoyskan يعني لبضن حفلات قيس كلمة رواية أبوه ده حلي رسكا وضي رسكا عبتوي أبوها نلاش كير دعسن مثل شخصيا يمد حرفات بقى نقول كسوهين ويفهم الكيسنين كصب حيد بوس كيسي معها حاجة في المضنة دي ودكتين ولا الكي ولا ليس أي كسامين بدنا مركا وضي حاجة لكن هو يدود أي واحد حي هو أدرشت بأهان جرتي وح أفريستي أو فيلمات أوجب بحضاي إني عرضت ذا كرسته يدا أي لبضن حبلات كسر تعبتي قيس يعني بقرتي وكسر جدا لكن سيدا أوصل تبعين مرة كشة كان سكرين كبور وديابيسا أدبض ويابيسايو ويصوت تبعينه وحي كل هذا هاي كريزم كبور حتى وحوي قفتي أجور ريس إن أنت
reer kabuur waa imise dee ragga ku badnaa oo raggaas ahaan jiray agtaro laakiin habluhu may ahaan jirin marka iyadu Karisma Kapoor waa inantii ugu horeysay caylad Kapoor agtaradu noqoto aad baa looga soo horjeeday laakiin hooyadeed ayaa garab istaagtay oo ku dhiirigelisay oo tir inantaydii keep going waad samayn kartaa wadna noqon kartaa guulina waad keeni kartaa Krishna oo aad iyo aad u da'yar waati filimada ku soo birjay filmadeedii hore dhan lagama helin lalama dhicin weyniga jib jirtay reerku xitaa waxa lagu leeyahay moral ahaan iyo dhaqaale ahaanba may jacsaneen baa lagu leeyahay waxba yeena quruxda dhalaalka iyo magacayna ark hooyadood aad bay ugu soo tacabtay hablahan marka waxay ku leedahay Karini anoo yar waati aad uga yartay Karisma waxaan arki jiray hooyaday iyo walaashay oo isku ooyaya oo Karisma xitaa ay doonayso markii hore inay filmada gasho oo ay awood kar laade hooyada ku dhiirigelinayso iyo markii ay gasho guule ka soo hoyn weyday xitaa oo ay aad u niyad jabsantay hooyada dhiirigelinayso ay ooyayaan oo qiiroonayaan oo xitaa ay aniga isku dayayaan inay ohintooda iyo marharadilaacodaas waayaha ka haysta ay iga qariyaan maadaama yaraa laakiin waan dareemayay tiri oo xanuunkoodaas waa mid aan la noolaabay jiray Karini Karisma markaa filmadeedii hore dhan umay guuleysan oo dadka dhan way bahdileen iyadoo markii hore aan reer Kapoor aanay u ogolayn inay inan caa'ilada oo gabadha maalmahaas ee sharaf darra ay ahayd sida fankiina berigi hore laga aaminsanaa gabadh reer boqortooy ka soo jeedo reer Kapoor inay aktarada iyo waxa ku hoos noqoto ee reer ka soo jeeda iyo markii labaad guule keeni weyd adu waxay tiri walaashay waxaan arkay oo silcaysa oo xitaa iyadoo reer Kapoor oo cidna garab siinan cidna filmo wanaagsan u dhiibayn oo habeen walba ooyaysan arki jiray bay ku leedahay marka waxay tiri xanuunkaas ayaan soo arkay waxaan uga socdaa waa qoys aad isu jecel oo aad isu garab taagan khaasatan hooyada iyo labadaas hablood oo marka maaragtay xitaa ay Karini ka hadlayso waxay tiraahdaa marba la weydiyo wax la oranayaa aabaha iyo hooyada marka la tagay saameyn inta la gooyay waxay tiri saameyn weyn ugu ma yeela sababtuna waxay ahayd tii oday iska cabtay waxa muusoo korin macna ay ka wada laakiin waxay tiri hooyaday ba kun aabe iyo kun hooyaba noogu filaado halgamaayad weyn oo saan noogu soo fara adagtay ahayd oo maanta wada Karini Krishnada aad garanaysaan naga dhigtay marka hooyo geesiyada ayaa i dhashay bay tiri oo aan maanta wax ku ahay sidoo kale walaashay Krishna ayaa aanu taageero buuxa u ahay oo aan ku soo hana qaaday iyadoo ku fayso istaagaysa markii dambana noqotay one of the best sababta hadaan u imaado sababta halka u dhimatay oo ay Krisma u daba taagan tahay mar walba Karina waxa weeye marka taa iyo jacaylka iyo familka iyo inay isxanaanayaan iyo inay islaashadaan iyo inay iska warhayaan iyo inay isku dhawaadaan iyo inay isku fiicnaadaan marka aan ka imaado Karini cilad bay leedahay Karini bebo hal cilad bay leedahay halka cilad ay leedahay waxa weeye caloosha ay ka hadashaa Bollywoodka marka la joogana sidaas ayaa la isku yahay magara qosol iyo sheeko iyo ka dhicis iyo istaad raacis baa lagu wada joogaa laakiin Karini saas ma aha bebo saas ma aha oo caloosha iyadu ka hadashaa sababta aday xawala qaali aad u aragtay in mar walba ay Krismi interview xitaa markay wada joogaan afka kaga boodaysa Karina waxay ka baqaysaa wixii dhabta inay ka hadasho meeshana siyaasad baa lagu wada joogaayo imikadaas waxay imika soo cuneen hadii xitaa la weydiiyo xirso xasan soo sameeyna qof hadii la yiraahdo waxbuu ka sheegay ama qofkan interview xitaa ka qaadaya haduu si wuxuu weydiiyo halka iyada ka soo wareegaysa maxaa saa ka wada dawad ugu qaldamaysaa caayis ka dhig oo meeshii way waalaysaa marka Krishni way u baqdayo waxay tiraahdaa maxay siyaasad ugu darweeday oo waxa walaal aqli ku daro siyaasad ku daro mar walba waxa qalbiga ku jira si toos ah oo dhan xitaa dad markay ku soo dhaga hadlaan iyadoo mar dhaga hadashay toos beeneedka ugu dhiibaysaa waa lagu yaqaanaa hadalka cad Karina waa lagu yaqaanaa dad badanna way isku naceen sadarteed walaasheed waxay doonaysaa inaanay dadku aanay nicin oo aanay hadalkeeda cad aanay ku hadalka cadna inta badan waa la isku nacaysaa marka waa taas sababta ugu weyn ee Karisma Kapoor ee walaasheed sida gaarka ah ay mar walba gaarka uga hayso sida Ashwari raayinteeda yar gacanta u haysato arara ayay Krishnina walaasheeda maanta hooyo laba carruur leh ay wali u ilaalisaa waa walaasheedu aad bay isu jecel yihiin way imkana waxaan u galeynaa Saif iyo Karina sidaba isku barteen
marka laga yimaado dee inay isku ahaayeen isku xirfad iyo isku dee family balwuri iyo marka laga yimaado goormay laakiin isjeclaadeen